والله ليال هوتيل كوجيا مركو إلهي هوتيل إما جينين باورك مركو ماشي كسود دكتني إما دوبين سيد عبد الرشيد بيو كلو كلنتود إما دوبين باورك مركو اللي وقع لنا حلوان ما هين وده جور عد عادي. حسبنا الله ونعم الوكيل ووح لغا حسودو إن قبر سوماليات لغو سميو waxyaabo arxan darro ah wiilka lagu magacaabo Nuur Abkow ayaa waxa uu u hanjabay isla mar ahaantaana uu cod ka duubtay gabar uga soo socdaashay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla mar ahaantaana ugu timid magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubbaland iyadoona sidoo kale gabadhu ay sheegtay inuu u hanjabay codna uu ka duubtay sidaas la ajligeedna ay ku soo goosatay tigid isla mar ahaantaana ay ka soo degtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya warbixin xiiso badan iyo dhibaatada Nuur Abkow uu u geystay gabadhan ayaan warbixinteenan saaxiibayaal ku qaadaa dhigi doonaa balse muuqaalkii intaan u gudagelin haddii uu kugu jiro damiir Soomaalinimo fadlan u damqo gabadhan walaal oo muuqaalka la garee la wadaag saaxiibadaada ku soo biirbareena bulshada ee Ducaysana Media kulanti haboon saaxiibayaal meel kastoo aad dunida daafeeda ka joogtaan ku soo dhawaada channelkeenan Ducaysana Media oo alaaba aan idinku soo gudbino warbixino idin xiiso geliya warbixinteenan daawadayaal waxaan ku qaadaa dhigi doonaa muddooyinkan dambe baraha bulshada waxaa ka socday gabar jeclaatay wiilka lagu magacaabo Nuur Abkow isla mar ahaantaana ku sugnayd magaalada Muqdisho gabadha ayaa ka socdaashay magaalada Muqdisho iyada oo safar ku tagtay magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubbaland socdaalkaas ayayna u gashay wiilka lagu magacaabo Nuur Abkow dartiis waxaana ay sheegtay inuu cod ka duubtay isla mar ahaantaana uu u hanjabay maadaama uu joogo magaaladiisa waa siday iyadu sheegayso haddaba ila milicso daawade muuqaalka gabadhan oo aad u qiiraysan isla mar ahaantaana ay ka muuqato care aad u xoog badan lana soo kulantay waxa ay filaysay maahane wax kale والله ليال هوتيل كوجيا مركو إلهي هوتيل إما جينين باورك مركو ماشي كسود دكتني إما دوبين سيد عبد الرشيد بيو كلو كلنتود إما دوبين باورك مركو اللي وقع لنا حلوان ما هين وده جور عد عادي وجي عد وجي وحيران جفتي وحق دامها مقعد مكدودا قبل أو جور جوكتو مقعد مكدودا أباي قبل أن إذا إن السيسة حتى إن نجوك تربع قبل بحيت رهي أباي من الجوجي مس هوتيل كوجيا وكله هوتيل كوجيا ده لكن ويلي ربع عن فيريا عندها ماشي حريص كوردي وصبح dhahay maqaayad iyo waxa aadina ku geeya maqaayad imigan cid gurigeeda marna baawurkan ku raacna aniga iyo greedy baawurkan ugu soo wada wiil gacanta go'na baawurka wada iyo greedy waa soo raacna guriga hada imaana gabadha turkada iga bobsino iga bixeeno qof safar ku imaada away baahanta bilaash oo idin aan baahideedina cid uma sheegnin baahida baahanahay imana dhig karo qof safar ku imaadana waxay taaba ogtiin bas waa soo baxay hada sidoo ku soo baxna waa soo turkadi hada soo dhahayna meesha hada tagana oo duubta sawirada iga qaatay aniga xanaaqsan waa soo baxay hada soo baxna gabdhiya la kala xanaaqay qadana masiin qadaa maqaad gelina dhahdo waa kaasa gabdhihii oo soo gurigooda iga soo turkeeya soo aastay gabdhiya gurigooda mid kalentood oo anisal dhahayo oo sina wax sala dhigaan gabadhaas oo wuxuu dhaad saxtii xanaaqdo waa ka daba baxa gabartan inta ku ogtihiin waa idinkaan uu ogaa intay ka baxaysay sidii ku soo raac guriga imaada gabarta xeetir soo baxay raac habarteena maxay u tiri gabadhan cidaadi raadsusa laakiin inay uma daadhaw habartay way u qayliye sidii ku xanaaq gabadhan la jooga ahaan dhahay gabadha daala jooga habeenkii waa soo baxay inta tagtay intay joogtaa ima dhin tikidka geedka baasaboorka sidoo soo goostay wuxuu dhaxa soo goosay waa imaad markuu imaad xaaka iga tabeeysa oo ilaahay markaas codo iga duubay ana waa cabsaday waa ku dilay camal waxa soo dhacodo iga duubtay codka doo iga duubtay cabsi daraadeed waxaan waxa ku qaw malaha codkaas waa soo dhigaa oo dhahay cabsi daraadeed u dhahay marka waxaan qaw malahan waxa qabta malamaan waa soo baxay lacagaan dalbada waxa u dalbay meel wadkiis joogina dalan ku joog waaye habeenkii meesha daataga tikidka aan soo jarto aan sida wax ma qabta markoo idhaa wax ma qabo oo cod iga duubay aan ka cabsado oo ku dilay oo idhaa waa soo bax 2 saac baasaboorkii soo goostay goon ambaag waxaan ku soo baxan anaa qabo qoftay oo baxda soo laabeysana ma jirto wajigiisa aan ka arkay inuu wajigiisa fiicnaa uma leeyahay waa aaminay laakiin ma fiicno waa soo sidaad ula socoto muuqaalada isdaba joogga ah ee aan soo galino baraheena bulshada ee Ducaysana Media fadlan muuqaalka la garee oo la wadaag saaxiibadaada ku mahadsanid daawade tan iyo kulanti dambe nabad diino.